ammaantu qofkay hodaa dhaliishu hankay dishaa talana ruuxay hagtaa. Bismillah, assalaamu calaykum. waa mar kale iyo xalqad kale iyo barnaamijkeena sirta nolosha. maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aynu u bixinay waa maxay taladu, sidee se qof loola taliyaa. qofka ibni aadamkii wuxuu la nool yahay bulshaad la nooshahay, dad baad la nooshahay, ama ha noqdeen dad aad asxaab tihiin, ama ha noqdeen dad aad la dhalatood ma garanaysaa tihiin, aad aqraab tihiin, ama ha noqdeen dad aad wada shaqaysaan, ama dad aad wax wada bartan. qofka ibni aadamkii dad buu la nool yahay. haddii aad jeceshahay iyo haddii aad neceb tahaybana dadkaas way ku saameynayaan, si togan iyo si togan bay ku saameynayaan. haddaba waxaa la yidhaahdaa qofku waa celceliska shanta qof uu la socdo. shanta qof la socota hadday shan tuug yihiin tusaale ahaan, adiguna aad wadaad tahay, si kasta ood wadaad u tahay, ugu yaraan marka aad muddo la socoto, haddii aad xataa tuug noqon weydo, waxaa laga yaabaa in astaamihii tuugta yeelato ilaa aad marka dambe iyagoo kala noqonayso. haddii aad sidaasoo kale la socoto qof kale oo astaantiisaas had yeelanaysa, waxaa la yidhahdaa qofku waa celceliska shanta qof uu hadba la socdo. haddaba dadka aad la socotaa ay u noqdaan dad san, ay u noqdaan magaranaysaa dad aad hagi karto, ay u noqdaan dad kula mida, ay u noqdaan dad aad xusheegi karayso, waa inaynu baranaa talada. waa maxay taladu, sideese qof loola taliyaa? waxaad laga yaabaa inaad aada isku weydiiseen, waa taa intaa la qaylinaye wadaadadu dadka waaninayaane, abwaanadu dadka waaninayaane, cid kasta ay cid un waaninayso, maxaa loo qaadan lahay talada? waa maxay mushkiladda jirta? waxaan doonaynaa mashaakilka jira qaarkood inaynu soo yar qaadano. talada haddaba intaynaan iyada ka hadlin, waxaan doonayaa waxyaabo kale oo lagu qaldo oo iyada la moodo inaynu marka hore ka hadalno. waxaa jirta wax la yidhaahdo dhaliil. tusaale ahaan qof aad asxaab tihiin, ama sidaa aan kuu sheegay laga yaabo inaa magaranaysaa ku saameeyo oo ama family tihiin, wax aynkaasa ayaa ku yimi, wuxuu ku yidhi niyow waxaan doonayaa inaan gaari iibsado laakiin lacag ma haysto, marka baloorkii ilaa halkii iigu yaaleen lahaa baan doonayaa inaan iibiyo. dabeed qofka markiiba waad ku qayliday, waxaad tii war miyaad waalantay, war ma baloorkii yaraa ayaad gebigaba haysad reerka doonaysa dejisa, qaylaad qofkii ku bilowday judhiiba. dee qofkii wuu naxayaa, wuxuu war waa maxay waxaan kugu dhacay? adiga laga yaabaa inuu ku soo tuhmay oo uu tala kaa rabay oo inuu waxaad la rogrogto buu kaa rabay, ma garanaysa adigina markiiba waad ku qaylisay, qofku wuu naxayaa. dabadeed waxaa laga yaabaa dabadeed sheekooyinka noocaasa ama waxyaaba caynkaasee weyn uu noloshiisa kaala tashanay inaanu mar dambe ku iman oonu kaala tashanba. marka qofkaa lamaad talin ee waad ku qayliday, waad dhaliishay qofkaa. haddii aad markaa ereyo adag u isticmaasho, dhaleecayn bay sii noqonaysaa. haddii ereyo kaloo sii adagoo xanaf leh aad u isticmaashana cay bay noqonaysaa, iyo ma garanaysaa si kale noqonaysaa. markaa dhaliil, dhaleecayn, cay ayaa laga yaabaa mararka qaar in talada lagu qaldo. dabeed qof baa ku caayaya ama ku dhaliilaya ama ku dhaleecaynaya, markaasuu ku oranaya waan kula talinayay, ilaamaa talinaya dee waad i dhaliilaysa, waad i caayaysay. kolkaa waa mid ka mid a waxyaabaha lagu qaldo talada, oo ah dhaliisha, oo ah qofka inaad markaba ku boodo adigoon waxbaba eegin, qofka aad markaba ku habsato. arrinka labaad ee lagu khaldo badiyaa talada waxa weeyaan shayga la yidhaahdo ammaanta, oo ah shay qofka hooda. iminka tusaale ahaan isla qofkiibaa ku yimi, wuxuu ku niyo waxaan doonaya inaan gaari iibsado laakiin lacag ma haystay, baloorkii baan doonaya inaan ku bedelo. dabeed qofka markiiba waxaad tihi wallahi waa talo wanaagsan, waad u riyaaqday, markiiba waad u bogtay, adigoo on waayihiisa iyo sababta ugu bedelanayo iyo waxaa jira iyo aan siiba rogrogin ayaad markiiba qofkii hore u tuqaantuqisay, qofkiibaad markiiba hore u dhaqaajisay. dabadeed waxaabad ku ammaantayba in arrinkan uu sameeyey arrin wanaagsan uu ahaa. badanka waxaa loo isticmaalaa ammaanta tusaale ahaan siyaasadda. qof xil kuu haya ayaa laga yaabaa inaad ammaanto bilaa sabab, bilaa dhugmo, bilaa rogrogid, bilaa waxba ayaad qofkii u ammaanaysaa. dabeed weynagan idhaahno hebel hebel wuu u guulwadeeyey. haddaad aragto ammaan khaliya oo aan waxba lahayn, oo aanu qofku sheekada kula ogeyn, oo markaba qofku bahal ammaana dusha magaranaysaa kula dhaco, badanka danbuu qofkaasi kaa leeyahay. marka ammaantu tala uma ekaato ee se qofka waabay hodaa. marka shayga labaad ee talada lagu khaldaa waa ammaanta. dabeed qofku ammaanay oo ku hoday oo been kuu sheegay oo ku yidhi arrin fiican baad samaysay, ayaa laga yaabaa hadhow tolo inuu ku dhaahdo waan kula talinay, dee ilamaad talinayna waad i ammaanaysay oo waad i hodayso dan baad iga lahayd. haddaba waa maxay talada aynu doonaynaa? talada aynu rabnaa shuruudo caynkee leedahay, sidee bay u eegtay talada aynu rabnaa? waxaan idhahdaa badayaa taladu waxay leedahay 3 shardi.
saddexdaa shardi haddii la buuxiyo aynu ka soo baxno waxay u ekaan karaysaa talo. Ta koobaad taladu waxay u baahan tahay dhugmo. shayga ugu horeysa ay talo u baahan tahay waa dhugmo. waa inaad shaygan u fiirsataa. maxaad walaal gaadhiga ugu baahan tahay? maxaad caynka ugu baahan tahay? miyaanay talo kula hayn arrinkaa kale inaad samayso? miyaanay kula hayn wixii kale annaga calashaan waxay u baahan tahay qofka inaad wareysato, qofka inaad waqti geliso, qofku inuu kaa dareemo. qof marka aad la talinayso waa inuu dareemaa sida aad kalgacalka aad u muujinayso, sida aad ugu fiirsanayso labadan shay oo kuu sheegay ee aad u darsayso. waa inay dhugma jirtaa. taladu waa inay jirtaa. qofkani waa inuu taladaa kula rogrogaa. waa shardiga koobaad ay taladu leedahay. shardiga labaad ay tala leedahay waxa weeyaan in qofka ibni aadankiihi inay taladu ka koobnaato laba qaar inay ka koobnaato. qaarka u horeeya qofku inuu ku dhiirigeliyo. marka taa waxaan sameeynaa waa arrin wanaagsan oo dawadigi bil gaadhiga ahaa maalmahanba ee magaranaysa caynka waa arrin wanaagsan oo inaad fikirto oo aad magaranaysa waa arrin fiican. laakiin talow miyaad u fiirsatay in baabuurta xumaan karayaan? laakiin talow miyaad u fiirsatay in waxaas dhici karayaan? waa inay laba qaar ka koobnaataa. qaar ammaana iyo qaar dhaliila waa inay ka koobnaataa. haddii kale dhinac bay taladu kaaga dheeliyeysaa oo qofka ama ammaan iyo inaad hodaabad u keenaysaa ama dhaliil iyo inaad qofka magaranaysaa niyad jabisaabad u keenaysaa. marka waa inay taladu labadaa qaar ka koobnaataa oo aad qofka labada dhanba kasoo sharaabisaa oo aad tidaa dhankaana bilay saasi dhacdaa. waa arrin fiicane laakiin bilay sidaasina kugu dhacdaa. waa shardiga labaad ee tala leedahay. shardigii koobaad wuxuu ahaa qofku inuu dhugmo yeesho oo aad waxaan dhugato uu kuu sheegayo. shardiga labaadna waxay ahayd inay taladu laba qaar ka koobnaato. shardiga saddexaad waa shardi muhiim waxa weeyaan qofka marka aad waxaan u sheegayso inaad u qariso. qof baad arkaysaa halkaa wax xun ku samaynaya, mid kale ay soranaya waaniyo wanaaji, dadka hortiisii buu kaga dhex qaylinaya. waad maad waalan tahay. waxa laga yaabaa qofkan halkan islahayd ka waaniyo ha soo hanuunsamo inuu kaba sii daraa laga yaabaa. kolka markaad qof tale u sheegayso soo kaxee, gaar ugu sheeg, gaar ula rogrog, gaar labadii shardiyo hore ma garanaysaa ayay ugu sheekee, gaar waxaad u sheegaysa ugu sheeg. qayb weyn bay ka tahay qofka inaad talada u qarin karaysaa. qof marka aad tale u sheegayso haddii aad aragto xataa inay dadkaag dhow yihiin, marka ay dadkaasi kasoo dhammaadaan kadib qofka u sheeg, u qari qofka talada. saddexdaa shardiye muhiimkaa bay tala leedahay. kow waa inaad qofka la rogrogi karayso. laba taladaada waa inay laba qaar ka kooban tahay. saddex qofka marka aad talada u sheegayso inaad u qarin karayso. haddaba saddexdaaba shayba waxa samayn karaya uun qofkan kalgacal u haya. qofkan haddaad neceb tahay mid bay kaaga dhacaysaa, ama ammaan bay kaaga dhacaysaa ama dhaliil bay kaaga dhacaysaa. marnaba lama talin karaysid qofaad neceb tahay. waata Soomaalidu tirada markaa qof wax ku siiyo waad heshaa, laakiin qof kula taliya ma heshid. way adag tahay haddii maanta 200,000 qof ay saa kuusoo hor fadhiistaan oo 200,000 qofba aad neceb tahay oo lagu yidhaahdo dadkaa wacdi lagu yidhaahdo. way adag tahay inaad dadkaa wacdida ood wax u sheegtaa, waayo dadkan ma jeclidda. markaa saddexdaa shardi waxaa ka soo bixi karaya oo kula talin karaya qofku jecel. marka horeba u tag qofku jecel oo aad ku kalsoon tahay oo magaranaysaa lexejecla kaa qaba. talo lexejecla kama soo hadho. qofku waa inuu lexejecla kaa qabaa. iyadoo taladu sidaa u kala duwan tahay oo lexejecladaa u baahan tahay ayaa haddana taladu mar cidda aad u sheegaysa ku xidhan tahay. haddaad ilmahaaga la talinayso qaab baad ula talinaysaa. haddaad aabbahaa la talinayso qaab baad ula talinaysaa. haddaad macallin tahay oo arday la talinayso qaab baad ula talinaysaa. haddaad wadaad tahay dad wacdiyayso qaab baad ula talo. iyadoo ay kala duwan tahay baa haddana hadba waxay ku xidhan tahay cidda aad u sheegayso iyo bi'adda aad u sheegayso. laakiin waxaan u arkay saddexdaa shardi inay tahay saddex shardiyo ay tala kasta iyo cid kasta oo u sheegaysaa in saddex shardiyo muhiim ay tahay. aynu baranna talada, aynu baranna sida dadka loola taliyo, aynu baranna sida dadkeena adigoo u lexejeclo waramaya inaad lexejeclo wacdiyi karto, inaad la lexejeclo talin karto, in adiga oo dhuganaya, adiga oo qofka niyad jabinayn, adiga oo dhiiri gelinaya, adiga oo u qarinaya qofka ceebtiisa inaynu la talin karayno. aynu barno sida dadka loola taliyo. waxaan kusoo gabagabeynaynaa tixdii yarada ahayd ammaantu qofkay hodaa, dhaliishu hankay dishaa, talana ruuxay hegtaa. oo mahadsantihiin.